بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا ليال سيدا أمد الرئيس جيبوتي دالية ديبدبه وحنا تابطي كحماني عجلدي فيديوغا uu soo baahiyey walaalkeen Fuad Yusuf Ali runtii halkan waxaan ka hambalyaynaynaa raganimadiisa dhiiranaantiisa iyo rabitaankiisa haddii la dhimanayo dareerka la iska duwaa waatii ahayd maahmaahdii xabsiga gabood horaan u soo gallay aniga iyo Dr. Xamud 4 bilood ayaan soo marnay waa la yaqaanaa runtii cidda soo martay gabood dhibteeda iyo siliceega waa la yaqaanaa waxaan ognahay inay taariikhduna bartay in xabsigu soo maraan dadka xaqa u dirira dadka isbeddelka raba dadka dulmiga diiday dadka ka hor jeestay silica iyo saxariirta dadka damiir kale dadka dhiigga leh dadka dareenka leh waa la og yahay alxamdulilah ilaahay baa noo sheegay oo na baray raganimadu waxa ay tahay dhiiranaantu waxa ay tahay shujaacnimadu waxa ay tahay dullinimadu waxa ay tahay dulmigu waxa uu yahay doqonnimadu waxa ay tahay ilaahay baa na baray alxamdulilah fuaadna waxa aan leenahay keligaa ma tihid ee rag kaa horreeyey iyo dad kaa horreeyey ayaad ku soo biirtay ood soo gaadhay keligaa ma tihid baan leenahay waan ku garab joognaa baan leenahay xaaskiisa qoyskiisa carruurtiisa qaraabadiisa waxa aan leenahay waan idin garab joognaa heel iyo hooba waan idin muujinaynaa waxaan ku dhaqaaqnay arrintaa markii aan ogaanay inaan waajibkeega gudanno wixii nala gudboonna aan ku dhaqaaqno kana fal celinno waxaan ku dhaqaaqnay inaan la xidhiidhno jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa annagoo la qaybtamayna videogii Fuad iyo dhibta uu ku jiro iyo xabsiga gabood tacaddiga ku haysta annagoo u turjumnay waxyaabaha uu soo tabiyey ee fariinta ee muuqaal iyo maqalba uu ku soo tabiyey sidoo kale waxaan la xidhiidhnay oo fariin aan u dirnay kagana hadlayno arrinta Fuad iyo tacaddiga lagu hayo dhammaan hay-adaha caalamiga ee u dooda xuquuqal insaanka sidoo kale waxaan la xidhiidhnay oo fariin aan u dirnay qoraala iyo videogii aan isku raacinay dalalka saaxiibka la dalkeenna haddii ay tahay dalka Faransiiska haddii ay tahay dalka Maraykanka haddii ay tahay midowga Yurub iyo haddii ay tahay Jarmalkaba iyo Belgiga dhammaan waxaan la qaybtanay tacaddiga lagu tumanayo xuquuqal insaanka waxaan la qaybtanay dhibaatada haysata iyo tacaddiga lagu hayo ee ku haysta xabsiga walaalkeen Fuad Yusuf Ali runtii Fuad waxa uu fahmay awooddu waxa ay ka dhigan tahay markii uu halkaa ka soo tabiyey in uu cabsi wax la yidhaahda uu intuu kafan ku duubay uu aasay qofkuna awood waxa uu yeeshaa waxa uu karaamad yeeshaa waxa uu ficil yeeshaa waxa uu sharaf yeeshaa maalinta uu cabsida intuu qaado uu kafan ku duubo uu aaso maalintaabuu qofku sharaf iyo karaamad uu yeeshaa Fuad waxa uu na tusay gaar ahaan dadka reer Djibouti uu tusay inuu cabsidii uu aasay awooddiisiina halkaas ayuu ka caddeeyey Fuad waxa aan leenahay garab iyo gaashaan baad haysataa ilaahay baad haysataa dadka reer Djibouti baad haysataa walaalaad haysataa aan ka mid nahay oo garab iyo gaashaanba ku ah hawalwelin baan leenahay xabsiga waad ka soo bixi taadii hadday gashayna waxaad tahay shahiid baad tahay dulmi baad diiday tacaddi baad ka carartay xaqu dirir baad tahay isbeddel baad rabtaa waxaan leenahay aakhiriya adduunba waxaad ku joogtaa
guul baad ku joogtaa sidaad adigu sheegtayna waxa aad tahay ayaa tahay ilaahay iyo ummadda reer Djibouti iyo walaalo ayaa garabkaaga ah waxaan ognahay in Fuad Yusuf Ali uu ka cararay tacaddi inuu ka cararay uu ka hadlay dulmi waxa uu diiday daranyo waxa uu diiday darxumo waxa uu diiday doqonnimo waxa uu diiday in lagu tunto karaamadiisa iyo sharaftiisa laakiin nasiib darradu waxay tahay Ismaaciil Cumar Geelle oo runtii askariga marka uu dhageystay cajaladihiisii ka cabanaya xaq darrada ka cabanaya tacaddiga ka cabanaya shakhsi ka cabanaya ninkii maamulayay ee sheefkiisa ahaa ee ciidamada cirka haysta ninka la yiraahdo Wahiib iyuu ka cabanayay Fuad laakiin nasiib darradu waxa ay tahay halku Ismaaciil Cumar Geelle uu ka dhageysan lahaa askariga halka uu ka dhowri lahaa xuquuqdiisa halka uu ka eegi lahaa labadan nin haddii ay tahay Wahiib iyo haddii ay tahay Fuad inuu miisaanka saaro uu u kala xaq eego ayaa waxa uu la saftay uu dhageystay Wahiib uu dhageystay waxa uu qaaday Fuad waxa uu ku riday kaniif taasi waxa ay ku tusaysaa Ismaaciil Cumar Geelle inuu yahay ninaan xaq aqoonin inuu yahay ninaan cadaalad aqoonin inuu yahay ninaan sinaanta aqoonin inuu yahay laba qof oo mas'uul uu ka wada yahay haddii ay tahay Fuad iyo haddii ay tahay Wahiib inuu kala raaco uu raaco Wahiib waa nasiib darro weey taa waxaa lagu yaqaanaa wadamada burburaya waxa lagu yaqaanaa wadamada qabyaalada iyo qudunku ay u horseedeen burburka waa nasiib darro weey in Ismaaciil Cumar Geelle uu maanta labada sarkaal oo midna uu sareeyo midna uu hooseeyo uu kala xigsado uu dhageysto Wahiib uu dhageysto kan kalena waxba uu ka soo qaadi waayo uu waliba u xidho uu kaniif ugu rido waa nasiib darro weey ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dalkeena uu ka soo gaadho qudunka iyo qabyaalada iyo qushaashka iyo kala qaadqaadka Ismaaciil Cumar Geelle uu horseeday taasoo halis ku ah burburka iyo jiritaanka qarannimadeena waayo waxa horay loo arkay in wadamo badani ay ku burbureen qabyaalada ay ku burbureen kala qaadqaadka ay ku burbureen xigsiinta la isxigsiinayo cid gaara ayaa ay ku burbureen Ismaaciil Cumar Geelle runtii waxba uma sheegayo waxbana kama odhanayo laakiin waxa aan la hadlayaa dad gaar aan la hadlayaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninku dilay harkuuma jiido Fuad Yusuf Ali waxa soo xidhay Ismaaciil Cumar Geelle waxa godka ku riday Ismaaciil Cumar Geelle waxa ku tumanaya ee ka raacay Wahiib waa Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle lama hadlayo fariin uma dirayo laakiin waxa aan la hadlayaa oo fariin aan u dirayaa inta hareere joogta inta garab joogta inta aragta ayaan la hadlayaa waxa aan la hadlayaa Xasan Saciid Khayre oo ah ninka sirdoonka haysta waxa aan ka leeyahay waajib baa ka saaran inaad u sheegtid Ismaaciil Cumar Geelle inuu qaldan yahay inay doqonnimo ay tahay inuu ficilkaasi faxshi iyo foolxumo u yahay ayaan kuu sheegayaa inaad u sheegtid waxa aan la hadlayaa Maxamed Cabdilaahi Wacays oo ah xugayaha guud ee madaxtooyada waxa aan kuu sheegayaa inaad la hadashid Ismaaciil Cumar Geelle oo u sheegtid waxaan uu sameeyay inay fuxshi tahay inay doqonnimo tahay inay dulinimo tahay u sheeg waajib baa ka saaran waxa aan la hadlayaa General Zakariye waxa aan ka leeyahay waxa uu Ismaaciil Cumar Geelle sameeyay waa fuxshi waa qudun waa kala qaadqaad waa qushaashnimo waxa aan ka leeyahay waajib baa ka saaran ee u sheeg anigu ma sheegayo waxa aan la hadlayaa Maxamed Jaamac Ducaale oo haysta gaarda Republikaaga waxa aan ku leeyahay Maxamedow waajib baa ka saaran waxa uu Ismaaciil Cumar Geelle sameeyo waa qudunnimo waa qushaashnimo waa dulinimo anigu ma sheegayo laakiin adigu sheeg waxa aan la hadlayaa Muumin Axmed Sheekh waayo arrimaha lagu haysta ayay ka mid tahay Fuad waxa aan leeyahay Muumin
ismaaciil cumar geelle u sheeg waxaad ku tidhaahdaa waxa aad samaynaysid waa foolxumo waa qurun waa qushaash waa kala qaadqaad waxa aan la hadlayaa cali xasan baahdoon oo qaba gabadha khadre maxamuud xayd gabadheeda qaba oo ah wasiirka cadaaladda waxa aan ku leehay cali xasan baahdoon waajib baa kaa saaran cadaalad waa inuu helo xaqiisa waa inuu helo gabood adigaa maamula ismaaciil cumarna u sheeg waxa aad ku tidhaahdaa waxa aad samaynaysid waa xaqdarro waa fuxshi waa qurun waa qushaash waa qabyaalad waa kala qaadqaad fariintaa iga gaadhsiiya waxaan ku soo gabagabaynayaa ismaaciil cumar geelle hal keliyaan odhanayaa waxaan odhanayaa nin kastoo aaris mooday nin kastoo libaaxis mooday nin kastoo khatar iska dhigayba wakhtiga ayaa qabtay wakhtiga ayaa kaxeeyey wakhtiga ayaa ku daray buubeelka ama qushaashka taariikhda waxaan ognahay dalal badan oo runtii xadhigu uu joogto ahaa dilmadu ay joogto ahayd masaafuristu ay joogto ahayd laakiin nimankii qooqayey madaxdii qooqaysay maanta halkay ku dambeeyeen xusni mubaarak halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa maxamed siyaad barre halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa mangisto xayla maryam halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa cali cabdalla saalax halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa zaynabdiin bin cali halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa mucamar alqadaafi halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa blaise campaore halkuu ku dambeeyey uu kaa awood badnaa adiguna waxaad ku dambayn doontaa haddii aad isdaba qaban weydo qushaashka ama buubeelka taariikhda ayaad ku dambayn doontaa nasiib darradu waxay tahay inaad uga tegi weydo carruurtaada magac iyo maamuus iyo karaamad waa nasiib darro inaad godob u beeraysid adoo da'a oo sii jeeda oo sii socda carruurtaada haddii ay tahay liibaan ismaaciil cumar haddii ay tahay caynaasho ismaaciil cumar haddii ay tahay hablaha haybado iyo faadumo haddii ay tahay carruurta oo dhan waa nasiib darro inaad u beeraysid godob